lacagtan la yiraahdo cryptocurrency bitcoin waxay ku laalaa bitcoin dahabkii cusbaa ee jiilka digitalka ee maanta digital currency salira al-umlaat ar-raqmiyya carabiga lagu yiraahdo markii hore dadku way qoslayeen markii la yiri internetku wuxuu bedeli doonaa dunida maanta waa lacag cusub oo hadda adduunyada ku soo kordhay lacagahaas badan gudoomiye ma aha dollarka caadiga ah warqada ma dahabkii la yaqeenina ma sidoo kale way qoslayeen markii la yiri bitcoin wuxuu noqon doonaa lacagta mustaqbalka lacagahaas mudan gudoomiye caalamka hadda ku soo kordheen waxa looga maarmay taakooyinkii ee bangiyada ku hay jireen dadka lacagaha waaweyn haysta oo ah in markaad lacag bangi dhigatid aad isla markii ka heli karin saadarteeda waa lacagta hadda la rajaynayo in loo guuro adduunyada hadda ay u guurto tani ma aha sheeko kaliya oo lacag degdeg ah lagu helo waa fahan waa isbedel waa jil cusub oo aan ka baqaynin tiknoolajiyadda ma shaqeynin yani ma dhidin afar la saac computer ma dul fadhinin باور ما سي سارنين ما سو سارنين سول ميل ما سارين كليا waa investment ina suuqa maal gashato lacagtu maanta warqad ma aha waa xog waa digital waa caalami inta dad badan ka baqayaan isbedelka kuwa aqliga badan wax bay bartaan way la qabsadaan oo talaabo qaadaan suuqaas marka maalin kasto saacad kasto sanad kasto wuxuu soo saaraa dad milyaneer oo soo saara oo aan u dadaalin inay milyaneer noqdaan marka ha ka boodin fursadaha bar faham oo u diyaargarow mustaqbalka sababtoo ah mustaqbalku cidnama sugo jiilka garanaya xogta iyo aqoonta waa ku waysan doona hantida dhabta ah lacagta meeshaas laga sameeyo mudan gudoomiye lagama sameyn karo apartmentiyo aad dhisatay wixii ka soo galo ma ka sameyn kartid lacagta meeshaas laga sameeyo kama sameyn kartid mushaar aad qaadatay wixii aad meel ka dhigtay kama sameyn kartid dad fariinta ugu weyn uguna muhiimsan mustaqbalku wuxuu raaci doonaa kuwa wax fahma ee aan ka baqanin isbedelka